lugo ilaahay soo qotomiyey sinsiman dhinac kasta ka dhamaystiran waa gartay tamaandho way dhaaftay caawa waa cambe intay halkan ka bilaabmaan labada garbood ka degaya waa gartay madow dhalaalaya waa gartay goor casara waxaan ahay hooyo aabba keligay dhalay waxaan ahay ubax reerkaasi ku indha kuusha markaa malihi thank you Mr. Jago malihi wax xidhiidha markaa waxaan ahay gabadh xoogaa yar kibraaniyada hoo quruxdeedan intay la cajabtay ragaba aan heelsiin jaanis ay kula hadlaan ama kii la hadlaba istiraahda oo kanishaarka uu xidhan yahay hooyadii aabihii baa u gaday islahan weyn goor casara maalin ifaysa anigoo iska faraxsan jawigu ii degan yahay guriga hortiisa fadhiya ba guriga hortiisa waxaa soo maray inan qurux badan oo timo jilicsan oo aad u xaragoonaya waa gartay taaqo kulama tashaday inankiiba igaga dhacday waaw inanka qurux badana magaaladaba ma ahee talo xaguu ka yimi guriga waxaa ku hortaala barkadaha biyaha lagu shubto waa gartay inankii isaga qudhiisu waan soo jiito uu igu soo leexda wuxuu yidhi walaal i waraabi okay waan kacay barkadii baan u soo daray gudaha maan gelina weel umaan doonine darihii aan barkada ka soo daray ayaan sir ku waraabi wuxuu igula kaftamay sidaad u qurux badan tahay koob u qurux badan maad iigu shubtid kaftankiisii jacayl baa dafi yiri kaftankiisii uu igula kaftamayeyba jacayl baa dafi yiri waa gartay ugu dhex qaaday waa la dhex qaaday inankii waxaa dhacday halkii baanu ka bilownay sheekadii waxaanu kala qoranay laynlaynkii guriga noogu jiray ma aysan jirin taleefano ma aysan jirin laynlaynkaasaaba waxaa isticmaali jiray de reer ka tegayo maasha allah hantiiska haysta inankii laynlaynkiibuu igala soo hadlay sidii aan sheegayay aan malaynayay inaan magaalada u dhashayba maaha wuxuu ka yimi Dubai inankii sheekaysanay waayo badan sheekaysanay hadalla soo jiidasho leh habeeno badan isku dhaxnaysaan u wada hadlaynay jacayl badan ballamo badan sawirro badan isla soo galnay adigu waqti dhalinyaro wada qaadato waqtigii ugu quruxda badnaa baan wada qaadanay waan isku guuleysanay waan isguursanay waa gartaa waan isla aqal galnay wuxuu ii keenay imaaraadka wuxuu ii keenay hooyadiis iyo aabihiis iyo walaalihiis acuudu billaah muu guriga u dejiyo reerkoodii buu ii keenay inanku markaa aad guurka faa'iido ma soo socotaa faa'iido ma soo socoto ku soco jacaylkaas ma guuleysanaya inanku aad buu ii jecel yahay wuxuu yimaadaa waqtiga u baxaya uu ii sheegaa xilligaasaan baxaya halkaasaan tegaya shaqaan aadaya waan soo noqonayaa xaafadu runtii markii hore way isoo dhaweysay oo dad wanaagsan oo markii hore isoo dhaweeyay bay noqdeen inankii markaan sanad isqabno oo aanan waxba isku dhalin ayaa xaafadii waxay bilaabeen guux ah gabadha ma inaan waxba kuu dhalin maan ilmo soo socon maxaa khaldan maxaga gabadha ciladu sanad baad hadda joogteen oo 12 bilood dhamaatay ilmama iman miya sanadkii labaad ba bilaabmay sanadkii labaad markuu bilaabmay hadalkii guuxii sidii buu u sii socdaa ilmaha ilaahay baa keena wax awlaadana ma dhex iman hooyadii markaa waxay bilowday inay tiraahdo guriga ma bariisun baad u soo doonatay nama bariis baad soo doonatay maadag ku leedahay ma inaan kaagan qaybta carruurta iga garaacin oo tirahay waa hooyo hadalka kuma adkaynayo
mida kale layma soo banana waalidka ku afceliyo waalid koolkooliya ay soo dhalay uma sheego isaga ma idhaahdo hooyadaa saasay igu leedahay ixtiraamka waxay kasii qaadaa islaantu inay sii fogaato waxay kasii qaadaa inay sii fogaato waxay kasii qaadaa inay kasii badiso waxay gaadhay markii dambe hablihii waa la guursaday guriga joogay aniga iyo 2 wiiloo isaga la dhashay iyo aabihii hooyadiisa soo hadhnay heer waxay gaadhay intay tiraahdo milix ii keen tankii walaal maxaydi intay tiraahdo milix ii keen cuntada markaan u keeno isagu uu soo gelayo ay ku shubto cuntada milixda ay tiraahdo eeg dhadhami tii guriga joogtay ee bariiska guriga u soo doonatay waxay rabtaa inay sonkor igu rido dhikar cuntada dhadhami أعوذك بالله من الشيطان هذا يدا قدرت milixda guriga markuu soo galo uu yiraahdo hooyaday maxaad saa ugu sameynaysaa aan ku raahdo walaal hooyada cuntada caadiga kaale cuntada kisheegtaa la soo dhadhami maanigu ma hooyadaas hooyaday ma ma iga suurtoodaa inaan hooyaday sonkor cuntadeeda milix kaga daro ama sonkor marka hore in reerka wiilka la digo waa qalad baniyo haddaan idde ku geyn baahay waalii waa qalad asiya idde kumidni waa ku ducaynaa baa ilaaha ku caafiyo I see you caafimaad degdega ilaahay kaaga barna waxa dhacday halkaa markay marayso islaantii maalin kasta igu soo dirayso oo aan arkayo inuu iga sii fogaanayo oo aan arkayo inuu cadaawad ii sii qaadayo oo islaantii haddii aan galo kajada aan cuntada soo kariyo aan israahdo iyadu markay dadku wada yimaadaan hal mar aad soo wada ridatid ay cuntadii wuxuu ku darayso ama tayd ku darayso ama milix ka buuxinayso oo ay sidii islaantii iga daba shaqeynayso ayaa waxa dhacday 3 sano la gaadhay 4 sano la gaadhay sanadkii afraad markay marayso oo islaantii dhuuntii cadeysay oo inankii aan jacaylka ku soo guursaday ee intaas oo dhan aan isjeclayna maalin aanan iskhilaafin ay isku kaaya dartay iskaaya nacsiisay baa maalin gurigii waxa iskaga kaaya tagay aniga islaantii kaliya hay soo wada islaantii iyo aniga kaliya gurigii la iskaga kaaya tagay adkaatay islaanta tiro ma dili doontaa Faadima Tamaandho islaantii aniga kaliya markii la iskaga kaaya tagay baa intaan sharaab soo qooshay oon koob haaf kaga soo dhigay oo warakiino ama jaafeer saad u garanaysaan tan dharka cadcadiya lagu dhaqo guryaha ayaan soo qaaday oo miiskii soo hor fadhiistay kuna noqday oo sabarad soo qaatay tibxawaash soo qaatay oo soo hor fadhiistay baan ku dhigayso ayaa hooyaad kaa badiyay habar yar baan kaa badiyay ixtiraam baan kaa badiyay sharaabkan soo maaragtid intaan warakiinadii ku daray sharaabkii oo ku buuxiyay ama wad cabi ama wad ku dili ama waxa kula dhicay tibxawaashta ama warakiinadan aad cabiyo sharaabka inna lillahi wa inna ilaihi raaji'uun oo kulorogas a'uuduka billah ma khaldantay gabadhaas ma soo saxsantay maadaama islaantu ay xaaladaha ku jeexjeexday in islaanta disho ma ku saxsantahay ku soco markaasay waxay leedahay maxaad leedahay maxaad rabtaa markaas intaan saa usha ma rabada inaan ku dhufto dhiig ka keeno ama meel buuran ka keenay saa ugu gujiyaan ku dhada ee dhagayso cuntadan ku keenso milix kuma darsan jirin ama rabin aniga inaan kaagana isku kaaya dirto maanta toostan ku dilaya intaan ku dilo ayaan odhanayada iska dhimatay ama wad cabi ama waan kula dhici kolba maan cabsiyeen laakiin waxaan rabaa inay iga hadho kolba meel ka gujiyay marba kilidan kaga gujiyaa meel aan ka muuqanin meelaha jilicda maaragtay ayaan kaga gujiyaa xaggan kaga guji xaggana kaga guji ee dhaqso cabdi ma qof cabaya sunu arkayo weyno caqli leh islaantii markaan silciyey oon cashar u dhigay ayaan kuuli maalin dambe haddaad howlahayga soo gasho adiga ku taala kooban kaa siinaya islaanta markaa may ku baraysaa ma baraysanaa alhaalamayna qof islaama ma tahay na iga daabay leedahay islaan Soomaaliyeed baa ku barayso eedo ilaahay baan kugu dharay koodhanaysa waxay leedahay alhaalamayahay alhaalamayna islaam ma tahay na iga daa bay leedahay adigu miyadan islaam markaad nafta ii keenaysay
sharaabkii baan iska celiyo wixii baan iska celiyo meeshii baan baalgeeyo halka iyadoo fadhida bay mar allaale markay soo galeen gurigii bay iska oohisay maanta oo dhan bay qaarii sidatay maanta oo dhan bay sidan samaynaysay markaasaan bisinka hooyo maxaa ku helay acuudu billaahi mina shaytaan rajiim wada hooyo quraan saar sidan ile maaha sidan si maaha hooyo quraan saar bay u baahan tahay adaa dhahaya ha haya islaantii haddaanu sidii khaatiyaan isku nahay oo iyana ay sidii ii daba socoto aniguna aan jaanis yar uun u eegto maadaama hablaheedii la guursaday aan hablaheedii awal guriga joogay aanay jooginoo aniguna aan sidii uun markaa layga tago aan u tiriyo caayo marba gugujiyo iyaduna intaa ay joogaan ay igu soo dirto isagii aan maalin kasta iskhilaafno maalin kasta islayno ayuu maalintii dambe gurigii iga raray waxay tagtay inaan hablihii isqabsano waxay tagtay inaan hablihii hooyadood lasoo saftaan oo idhahdaan hooyada saanaad u gashay hooyada been ma sheegayso adigu aakhirkii waxay gaadhay inuu gurigii iga raro gurigooni ay dejiyo hadday bilaabmaysaa hadda sheekadu adkaanaysaa dhe ha waxa dhacday waxaan isku dayay inaan soo celiyo markaa kalsoonidii markii hore naga dhexaysay 5 sano sii socota weli awlaad isku manaan dhalay waxaan isku dayay inaan soo celiyo kalsoonidii markii hore naga dhaxaysay waxaan isku dayay inaan jacaylka islaantan kala fogeysay aan dib soo celiyo waxaan isku dayaa markaa inaan romantic u sameeyo inaan soo dhaweysto inaan kalgacayl ka sameysto inaan waxu diyaariyo inaad sidii gabadh ninkeeda usoo jiidan jirtay inanka isagoo soo yara dabcayba oo xaaladda iyada ay yar degan tahay laakiin islaanta ay xaggii kasoo dirayso ay leedahay war guurso 5 sanaad joogtay naagta waxba kuu dhali mayso ayaa maalintii dambe cabdiqaadir oo iyadoo ay aan quraacdii usoo dhigay oo aroortii uu bixi jiray wuxuu ka shaqayn jiray shirkad buu ka shaqayn jiray oo aan quraacdii usoo dhigay oo habeenkii igu yiri dharka noocaasa maaragtay ii kaawaday biri dharka noocaasaan xidhanaya oo aan dharkii usoo kaawadeeyey uu soo meedhay kareemkii u mariyey dharkii anigu aan u xidhay markii kabihii uun u harsan yihiin ee uu quraacday xitaa kadinka uu kasii baxayay ayuu yiri soo fadhiisaarkan waxbaan kuu sheegayaa wuu guursanaya muxuu sheegaya badina tahay waxaan guurhaynba halkan soo fadhiisa buu yiri waxbaan kuu sheegayaa kursigii baan fadhiistay marka anigu waxaan usii daba socdaa uun fadhiga u dhaafinayaa inaan laabta sii geliyo oo aan shaqadii u diroon dhabarka kasii dhirbaaxo sidii caadada haydan samayn jiray kursigan soo fadhiista buu igu yiri waxbaan kuu sheegayaa kursigan fadhiista wuxuu igu yiri xaaskayga baa tahay intaasoo sano aan ku qabay waxa weeyaan awlaadana ilaahay baa bixiya waxa weeyaan weli maan ku odhi awlaad maxayna u dhali weyne maxaa inaga khaldanmay awlaada ilaahay baa bixiya xaaskaygiina waa tahay jacaylna waan kugu soo guursaday welina waan ku jeclahay laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego intaad xaafadayda kama maqli lahayd ama meel kale ka maqli lahayd gabadh baa laysiiyey gabadhii baana u socdaa meherkeedii yaa adkaatay gabadh baa meherkeeda u socdaaya gabadh baa laysiiyey gabadhii baana u socdaa meherkeedii waxaan ku hadlo iyo jawaab aan celiyo ayaa garan waay waa ninkaan anigu cadarka usii mariyey timaha usii feedhay saliidda usii mariyey kareemka usii mariyey dharka usii xidhay kabihiinu gashada keliya taa u harsanad kabaa xitaa waan u masaxay dharka ku googooba qaar ku leeyihin maxaad samayn leedahay hablow idinku maxaad samayn leedeenba waa ninkaaga ducaadi ilaahay baa afar u baneeyey faadma maxaad samaysay markaa waxaan ku idhi 5 sanaan reerkiina u sabray shaqaale oo ahaa hooyadaa wax kasta igu sameynaysa aan u dulqaadanayay aniguba awlaadda waan u baahanahay maad tegin dhakhtar maad tegin oo maad soo eegin ciladu waxay tahay iyo halkay wax ka jiraan iyo waxay naga khaldan ma waxaad ku xalisay inaad gabadh tiraahdo maanta gabadh baan guursanaya anigu gacanteeda kuugu labisay haabuu igu yiri
gabadha waan guursanayaa waa lay siiyey doonistii wixiiba way dhacday meherkii keliya hadhay iminkana odayaashii baa sugayay intaa inaan kuu sheego un baan rabay waxa kale caawa markaan soo noqdo baan ka wada hadlaynaa albaabka qabtaan markaa Faadimo 5 sano 5 sano waa gartay ma la joogi leedahay hablo ninka 5 sano ku qabay aad wax u dhanaan laakiin kii wax la leeyahay waa gudi albaabkii buu ka baxay albaabka markuu ka baxay waxay ahayd maalintii iigu adkayd islaantii dhibaysay iyo wixii hore dhibba ma soo arkay maalintii iigu adkayd ما شاء الله hablo wanaagsan baa jooga caawa la wada joogleen beedaan soo hablo hadda in lala guursado way ogolaadeen now adduunku isbedelay ka waran sanad ka sii dambaysa hablo way ilbaxayaan way ogolaanayaan in lala guursado bari goor saas ma ahaan jirin gabdhuhu aad bay xanaaqi jireen ku soo Faadimo wax allaale iyo waxaan sameeyo ayaan garan waayay waxa igu soo dhacday intaad qaadato baasaboorkaaga wadankii ma ka digtay xaafadiina ma tagtaa waxa igu soo dhacday gurigan ma ka tagtaayo gabadhan saaxiib ahayn gurigeedii ma aadaa 150 fikradood baa igu soo dhacay waxay ahayd aroor fiidkii bartii anigoo fadhiya oon salaad u kicin oon cunto u kicin oon meel kale u kicin buu yimi halkii anigoo fadhiya waa gartay qadadii muu soo noqon waa fiidkii 8 subaxnimo iga baxay 9 fiidnimo bartii kursiga iga tagay anoo fadhiyay yimi aad noqday deetana waxa dhacday quraacdii bartii bay taalaa oo ku sii cunay uu soo kacayay maxaa ku helay soo guursatay baan ku dhahaa gabadhii ma soo guursatay ha warqadeedii isii bartaa waxaan u fadhiyay halkii aad iigu sheegtay inaad warqadeedii igu siiso maalku kugu sheegay sidoo fadhidaa markaa 8 subaxnimo meeshu igaga baxay 9 fiidnimo iigu suuli uma kicin salaad uma kicin cunto uma kicin caag baan ku noqday la hawla wala quwwata illa billah Muuse aga qurux badnaan iska furaysa ha hadda Faadimo waa Muuse laakiin caawa Muuse ma jiro waa gartay gabadhaas ma ku saxsan tahay yes or no way ku saxsan tahay waa qosolka way ku khaldantay ninkan iska furto waa inta ku soo wuxuu igu yiri furinka waxaad ka sheekeynaysaa muxuu yahay samoogidna halkan anigu ku keenay xaaskaygii aad tahay anigu baan ku jeclaa wax kastoo reerkayga isku hasanaa maalin reerkayga ku raacin maalin ku dhirbaaxin maalin wax kugu sameyn gabadha hadaan guursaday ma seertir baan ku siinaya waxaad u baahato codso laakiin warqad hay weydiin sidii baa xanaaqay gudihii buu ii dhaafay dharkii buu iska bixiyay suuligu galay meelahan oo marbaray uu iska seexday adigu kugu xanaaqay baa waa akhlaaq inta ma ku raaciyo waliba ma iyo akhlaaq inta ma oran markaa laakiin soo wada waa gartay inuu ku raado way waa gartay oo iska seexday sariirtii baan kaga daba tagay ma seexanaysid baan ku oray inaad warqadeedii isiiso baa jirta soo gabadh maad guursan soo saaka kuma sii labisin soo ma soo guursan yada la aqal galaysa yada ina ma ku dhalaysa aniga laakiin wadi furaysa iska seexay habeenkii buuqii qaylo dheer kadib waan orday subaxii gabadhii saaxiibadii baan u tagay waxaan ku oray waxaan u baahanahay inaad ila raadiso baaskoolad baaskoolad inaad ila raadiso أعوذ بالله من الشيطان الرجيم باسكولتي باستوداي ها كو أتكاتي والله هاي gabadhan saaxiibaday markaa ninkeedu shirkad buu maamulo ka ahaa shirkadda markuu maamulo ka ahaa baaskoolad isaga dawladda uga sharciyeysan oo uu naftiisa ku ilaashado haysta waan ku ogaa markaan laay waxaan rabaa inaad baaskoolad la raadiso dhaar waxaan ugu maray inaan ku dhufanayn laakiin warqadeedu inaan kaga qaadanayo waayahay bay igu tiriyo odaygii oo hurda habeen joog bay igu tiri intuu imanayo markuu yimi oo uu jiifsaday kobadiin buu saa u gelin jiray kobadiinkii kasoo saartay way ii dhiibtay أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
way ii dhiibtay markay ii dhiibtay waan soo orday taxi baan soo qaatay gurigii baan imi markaa weli muusan iman oo khilaaf buu ogaayo ragguna haddii khilaaf guriga ka jiro hore uguma soo dheerayaan sidii hore hay hablo ma ku taageersantiin gabadhaas inay baaskalo soo qaatay hadda marka ma ku taageersantiin hay gurigii baan imi waan sariirtii oo sidii uu saaka uga kacay ah ayaan goglay waan iska fadhiistay uu yimi ilamuu hadlin lamaan hadlin qolkiibuu soo galay waxaan ku uhi warqadaydii ma siinaysaa hadda haayo maya waxaan ku weydiisanayaa maaha wax kale warqadaydii way anigu madaxaygii ma i siinaysaa haa oo maya waad ku haysaa markaa may waa shahaadadii u dambeysay shahaadadii u dambeysay haa hay warqad layna qayladayga daa gumsi guriga oo kaaga baxaa maya ha iga bixina iska seexo hayga bixin iska seexo haa dharkiibuu iska bixiyey sariirtiibuu fadhiistay dhinaca kobadiinka lugihiisu saa u laalaadaan taleefonkiibuu saa walaaqayaa markaa hay baaskooladii baan soo qaatay oo boorso halkaasi iigu jirtay waxaan soo xidhay surwaal waxaan soo xidhay diracii baan dhexda ku xidhay fanaanad baan dusha kasii xidhay dagaal baan usoo diyaar garow baaskoolada xitaa isku hadlayn ba waxaa isleeyahay armu baaskoolada macaa kasoo boodaayo waa inaad markaa hadda isdifaaci karayso hay baaskooladii baan soo qaatay waan raaciyey agtiisaan soo istaagay qarac shahaado warqadaydii astaqfirullah cabsi wallah hay naameed waalantahay naa baaskooladu waa maxay warqadaydii naabal horta hoosuu dhigdha shaydaanka iska naartuu lahaa halkaa dhekadiisa gidaarka markaa uu istaagay kobadiinka agtiisii buu taagan yahay dhekadiisaas oo gidaarkaabaan kaga siiyay bul waa ku ridayba haa adkaatay intaan aqaani way dhaaftay anigu adkaatay ninkii waa isu kaajay anigu horaan ka dhiibi laha warqadda naa lagugu dhufay warqadaada hoo naho waa seexila haye taxigta waa madaxaaga hadda way iga garab martay taxigtaa waa sujuuda yeedhi markaasuu yiri waan ku furay aan ku xiji dalqada labaad uu yiri waan kugu xijiyay mid labaad saddexaadna waan ku furay tii saddexaadna raxmadi furan iga soo bax uu baxay dharkiisa gacanta ku qaatay kadinku ku sii gashaday hablo idhaahda ninkii baa na dilay iyo ninkii baa na furay oon oynuunba maqli jirnay waa gabadh ninkii ku qabatayba uu isu kaajay ninkii kole uu isu kaajay ninkaas hay faska anigu fulay baa horaa ka dhiibi laha wallaahi baaskoolada hadda arki lahaa intaan la radin waa dhiibi laha waa carari laha anu xitaa dharka ma qaateen cabdiqaadir anaaba ismoodoo gagabanayay والله وقبنا والله وحبرك لقاطع حتى ما هي كسر بلا baaskooladii baan qaaday waxaan isir gurigayo booliskuugu keenay ila baaskooladiina way dhacday shandada jaarkaa maqlaya markuu baxay waxaan isir gurigayo booliskuugu keenay gurigii baan xidhay taxi baan qabsaday gabadhii saaxiibadii baan u tegay waxaan ku uri saaxiib ninka warqadii kasoo qaatay gurigiina kuma noqon karayo inaan kula joogaan raba gabadhii saaxiibadii baan gurigeedii tegay gabadhii saaxiibadii gurigeedii haddaan muddo joogo gurigii kuma noqon balaayaa ku noqoto waxaan isleeyahay askar buu kuu dhiibay oo ku xidhaya laakiin gabadhaas ma furantay soo ma ogdin saddex wala iskuma furaxtaa ma furanto makhraatiyana u baahan tahay ma furmaysaa yes or no ma furanto de ku soco kuma noqon gurigii halkii baan muddo joogay xaafadeedii baan la hadlay waxaan ku uri ninkii naag buu guursaday warqadiina waan ka qaatay isagii baa iga horreeyay markaa xaafadii la hadlay oo ku yiri gabadhi saasay ii gashay way dili gaadhay dee ilaahay baa badbaadiyey nin sigtay ma noola sidaa ula socda gabadhii meeli jirtana warkama hayo deetana markaa xaafadeeda markuu la hadlay xaafadeedii aan la hadlay ayaa laygu yiri maxaad ninka saa ugu gashay maxaa kaa khaldan haddaad dili lahayd ka waran adiguna jeel baad ku waari lahayd annagu adiga keliya taanu ku arahaysanaa soo ma ogid hooyo aabba warwarsan aanan wiig la hadal waxaan ku uri ninkii waan kala tagnay warqadiina uu siiyey idinkana soo idinlamuu soo hadlin haa uu nala soo hadlay saasuu nagu yiri markaa uu sheegay xaafadda inuu i furay taasan kaga furma
meherna kama rabo oo de meherba kama qaadanayo anaa khasab warqada kaga qaatay meherba ma jiro halkii haddaan joogo gabadhii saaxiibaday hadday haddana bilaabmaysaa gabadhii saaxiibaday haa gabadhii saaxiibaday muusaheedii baan ka helay yaa saaxiibadaydii baaskooladay soo siisay ee i caawinaysay yaanu saaxiibka ahayn markaan reerka la joogay aan u tegi jiray kusoo nafisi jiray ninkeedii ayaan iska helnaa laa xawla walaa quwata illaa billaahi alcaliy alcadiim dumarku saaxiib ma galaante gabadhii caawisay yaa ku soco fiidkii markuu soo rawxo ayuu laba fadhi baa guriga yaala midna waa qaaci midna waa fadhi carbeed deetana ka qaacigaaba wuxuu ku cabaa badeecad waan soo ag fadhiisanaa aniga gabadha saaxiibada markaa waa gabadh wanaagsan oo iska qalbi xabxabo daacada dadka inta badan daacadda ana waa laga faa'iidaystaa agtiisaan soo fadhiisanaa waan u sheekaynaa gabadh markaa sheeko badan waa anigiina kuu sheegay dee inaan qurux badanahayo gabadha saaxiibadii markaan ag taaganahay habeen iyo maalin baan isku nahay gabadha saaxiibaday caruur yareer bay haysataa anigu waxna maan dhalin oo de sidaydii baan ahay inanta ahaa markaan ahaayoo kale inaa ilaahi wa inaa raajicuun hablow saaxiibadiin gabadha ma ka qaada leedeen wallaahi hablow aad bay isugu wuxuyiin ni hablow maxaa saas ugu gashaan bal gabadha soo dhaweysay baastooladu dhiibtay gurigeedii keentay markaa muuse goormaad la sheekaysataa faadimo goormaad ka heshay ma ugu tagtaa qolka waan soo wadaa royal oo iga degdegine deetana waxa dhacday halkaa markaan agtiisa fadhiistana iska sheekeynayno sheekada u sheekeynayo inankii sheekadaydii unbuu ka helay maalintii dambaa waxaan ku yidhi gabadhii beri waa inaan tago gurigii aan tago oo maradaa ninkii kala dhammaanay reerkiina aan waxba u sheegin xadhig iyo waxba u sheegin 2 bilood iyo waxbaan la joogaa markaa reerka wax badan xitaa lama joogo ciddadii xitaa weli iimay dhammaan ayaan beri waxaan tegayaa gurigii waxaan rabaa inaan dharkaygii alaabtaydii kasoo qaato alaabtaydii oo dhan markaa waan kaga imi dahabkaygii yaraa dahab yaroo aan haystay un mooyaane wixii kale waan kaga imi markaasay igu tiri hebel baa ku sii qaaday taxi waxba ha sii qaadan markuu shaqada u socdo yadaa igu tiri markuu shaqada u socdo buu ku sii qaadayaa hebel baa guriga ku sii dhigaya hadhowtana waxaad samaysaa taxi soo qaada soo noqodka taasi iyadaba caaniya abadii taasi iyadaba doqonaba ninkii aad rabtay ku tiri ku sii qaaday maxaad dareentay markaa faadimo anigu markaa weli isaga kamaan helin laakiin isaga aniga iga helay tinkiyo man isaga aniga iga helay markaa anigu weli kamaan helin oo maashi ahaan baan u ixtiraama oo nolol sheekaystaa isaga ka helitaanku markaa ku badan yahay laakiin asmaashi ahaan baan markaa rabaa inaan u raaco inankii baan raacay gaadhigii baan raacay cabaan markaas waan is wareysanay ninka maxaa isku qabateen imse sanaa is qabteen dee isagoo awalba iska ogaa sheekado aanu gabadha saaxiib ahaynoo dee sheeko uu rabo markaa inuu igu soo galgalo cabaar markaa sheekaysanay buu igu yidhi qofii ka waran haddaan inagu isku qabsano laa xawla walaa quwata illaa billaahi alcaliy alcadiim mise waa ku dhahay haa waa hantiile ninku yaa waa hantiile waa milyandeer haa niyadda markaa waxaan ka idhi waaw kanoo kaliyaa heli karaba markaasaan ku idhi soodiga dee saaxiibaday xaaska ninkeedii ah maxaa dee saaxiibadayna markaasu yiri saaxiibadana waa naag adiguna naag baa tahay anigu adigaan kaa helay maadaama haddaad ninkii soo kala tagteen gurigaygana aad joogto ka hor haddaad xaajiyadayda noqoto inu heshiino dee sheekaysano oo haddaynu markaa iska helnaan xaafadii kaa doono dee xaaskayga labaad noqoto hablo ma ogolaan laydeen idinkoo runta ilaahay sheegay ninkuu lacag buu leeyaa ha ilaabina he has money waa ogolaan lahaa ma ogolaan laydeen yes or no waa ogolaan lahaa waa oohinta ma ogolaadeen waa qosolka ma ogolaadeen waa qosolka may waa qosolka ku soco ku darsoo gurigaygii markiiba waxaa niyaddeeda soo gashay gurigaygii in naagi iga soo dumiso anigama naagi iga soo saartay gurigaygii markaa waxaan idhi way aad u leedahay saaxiibaday adigaba kaagi naag baa kaxaysatay yaa waxaan anaa markaa niyadeydan kale weli isagii jawaab maasin adigaba gurigaagii naag baa kaa soo saartay way saaxiibaday u leedahay gurigaagiiba naag baa kaa soo saartay mad guursatid
kaagiiba soo mid may guursan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هيا waxa dhacday inankiiban sidii aan waayahay baan ku idhi laakiin saaxiibada inaan isku xumaano maadaama gurigeediina joogo martina aanu ahay inay ogaato inay dareento ma ogoli anigoo mar raba buu yiri reerkayga waxaa dareemaan waxaan rabaa inaan hoos u sheekaysano haddaan isku helno qurux maasha allah qalanjaa tahay wuu ku qahaysan kari waaye ninkii adigoo quruxdan sidan u qurux badan haddii aniga xaaskiigu saan u qurux badan tahay saaxiibada kama baan tageenba يا kama baan tageenba haddii saan u qurux badan tahay xaaskaygu هذه السادة عمل هذه قرح بانتهي haa ما حد دريم سامر كفاض ما خدش سامر فرح سنتها waan faraxsanahay ma heesaasaan u dubaaxinaya waan dubaaxinaya مدبحين سجرير يسوحن يحمى دباحي صار بالله dubaaxis هي عندي سمي سامسون هوس بديسا maya waan ka yara xishoonayaayo dhinacaasan saa u eegayaayo waan yar dhoola cadaynaya واو هي deetana halkaa markay marayso gurigii baan gaadhnay gurigii markaan gaadhnay lacag dirhama buu ii dhiibay wuu igu yidhi hoo dhowri taxi kusii qabso haddaad suuqa wax u baahan tahayna ila soo hadal wakaas saasay noo ahaanaysaa taleefon nambarkii buu iga qortay taleefon nambarkiisa waxaan ku qortay in adeerkay يا إلهي waxaan ku dhaada maqaano ku soco in adeerkay baan u qoray wallahi waa adkaatay wallahi deetana waxa dhacday baan ku qortay halkii baan taleefonkii markaan sidii ku qortay oon message markaan ag fadhiyo message baan ku wada sheekaysanaa hebel xabadaadii baan ag fadhiyaa wala maxay qabanaysaa saasay qabanaysaa marka waxaan anagu isnalaahna weyno iyada ay ag fadhida saaxiibaday baan iyadii xamanayna la xawla walaa quwwata illa billahi al-ali al-azim hee marka badeecada habeenkii soo fadhiisto awal saaxiibaday bay ag fadhiisan jirtay anaguna iyadan dhinacan ka fadhiisan jiray hadda step waxaan bilaabay inaan dhinacan markay ka fadhiisto anaan dhinacan ka soo fadhiisto ma hadashay saaxiibada dee waxay moodaysaa saaxiibadeedu hadda ninkii soo furay oo aan weli xitaa ciddadii ka bixin ciddadii bil baa iga hadhay aan ciddadii xitaa ka bixinoo dareenkaasiba waa saaxiibadaadii shalay naftu idinka dhexaysay mooyaane ninkaaganay damcaysaaba ma joogo 2 bilood baan joogaa markaan ninka shukaansanayna shukaansiga bilaabay 2 bilood oo keliya imaanka lacag wallah ismaba lahaba waa saaxiibadaadii shalay aad nafta isku bixinayseen mooyaane saaxiibadaabaa ninka kaa qaadaysa ma cindigeedaba ma gelin amaba dhacday waxa dhacday cabaan markuu fadhiyo wuxuu ku yiraahdaa yaa xabiibtii iisoo qaad kajada waxaa iiga keen marka kajada waxay ka aadaabo gacanta saa iisoo qabtaa inta ay maqan tahay rabo inuu gacanta sii haysto oo gacanta keliyaad ووري ما حد دريم سمرك ما حد لقى أدونا حتى gacmaha iska kacaysa wax kale dareemaya garan maayo markaas waxa dhacday أعوذ بالله من الشيطان الرجيم qadeeda markaan maqlo in ay soo socoto ayuu gacanta sii daaya markaasaan ku raada ha anigana koob sharaabka iigu shub hadee sharaab wado magaas sharaabka ii shubta halkii markaan in muddo ah sidii u sheekaysanaynay ayaa waxa dhacday in muddo aan sidii u sheekaysanaynay xaaladdu sidii ahayd oo aan gurigii joogo 7 bilood oo 7 bilood sidii u sheekaysanayno oon habeen baxo casarka dheer oon idhaahdo maanta halkaasaan tegayaayo aanu magaalada wada aadno day soo wada qaadano ayaa waxa dhacday maalintii dambe waxa ku heshiinay inaan isguursano inaan isguursano ayaan ku heshiinay ودي دودة أدم بقى ها 7 bilood ayaan wada soconaa